مصر sida aad la wada socotaan waa wadan walaalo aan nahay oo ay naga dhaxayso xiriir soo jireen ah oo runtii qarniyaal ah ilaa waqtigii faraacinta aanu xiriir lahayn dawladihii kala dambeeyay ee Soomaaliya soo maray lixdamaadkii toddobaatameeyadii siddeetameeyadii waxaas oo dhan waxa naga dhaxayay xiriir wax wada qabsi oo Soomaaliya iyo Masar ka dhaxayay marka waxaan ka jawaabayay safar uu halkan ku yimaado wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Masar bishii December 2020 asagoo casumaad iiga waday inaan safar rasmi ah ama official visit aan ku tago dalka Masar shirkaas waxaan la sugay oo asagana aan ku aadiyay shirka dawlad jaamacadda Carabta oo ayagana aan isla markaas halkaas kula kulmay safarkeena sidaan sheegay uu geeso badnaa waxyaabaha laga wada hadlay runtiina waxay ku xiran tahay oo uu ku saleysnaa shirkaas iyo wada hadalkaas aan yeelanay xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Masar kuma aadanayn Masar iyo cid kale wixii ka dhaxeeya Soomaaliya qayb kama ahaan karto laba dal oo kala khilaafaadka ka dhaxeeya waxaan ka hadlaynaa waa danta